اوكي horta anagu karfa aan dhigay ma jirto هاي waxaan anaga xirtay waxay ahayd mudaaharaad aniga keligeyga igu kooban ay ahayd meelo badan oo horena waa u xirtay waa kaas meeshaas shirkaas waa shir aan kaga qayb galay magaalada Belgrade oo marada cadaa xiranahay halkaa waa markii awoodka la isiinayay gabar walaashay ahaa ii soo qaaday reer Jabuuti oo iyagana habeen iyagana awood kale isiiye iyagana waa tanaa halkaan aan ka xiranahay waa taasaa marada waxaas waa xiranahay marka waxaasi صبح waxaan aniga waxaan dhigay maaha laakiin maadaama muddada dheeraatay ani waxaan u baahanahay inaan xaraqooda wixii هاي baa ii yaalaan and maybe if they allow me hadday ii ogolaadaan museumka la dhigi doonaa maryihii waa yaalaan xataa lama tuurin markii aan u garto waa aragtay markaad istiraa way wanaagsanaataba gadaal bay ka halaabaysaa sheekh badbaadi ay waddanka kuma nooli laakiin waa la socdaa صحيح meesha lagu هو dhigaayana oo ku talagalana waa isbitaalka aan ku dhashay martiini marka halkan lagu dhigi maayo hadii la dhigayo waa inaan waddanka tago ya laakiin هاي maalin walbaba markaa istiraa wixii waa soo fiicnaadeenba ibtala haddana maaragtay assulaamaysa waxba assullaamaya marka meeshii aniga aan ku talagalay inaan ku dhigo marka la gaaro waa dhigayaa haddaan intaas dhintada allaha ii naxariisto walalaalin aamiin ilmahaygaa kala dardaarmay waa loo geynaa dowladda soomaaliya maryahayga si museumka u dhigto baba haddayba darajo leeyihiin waaye haddayba darajo leeyihiin oo wax darajo leh meesha ay ka taliyaan museumkaa la dhigayaa maryahaygii museumkaa la dhigayaa iyo sawiradii anigoo xiran soomaada karan waayo qof islaam baanahay aniga taalo iyo waxaas iyo afaarahaas ma geli karo mogta dadka islaamka ahayna statue iyo taalo iyo waxaas loo dhisaa lagama rabo waxaas marka tan asayda شيء saas waa markaan qaadanayana anigu nabadgelyadaa u qaato wax kale uma qaadan nabadgelyadiina ma sugno weli xamar baabuurkaan ka raaco iyada oo lay carqaladaynin ma ku tegi karaa baki iyo xuduudda low iyo cadda I don't think so ha that is waxa aan aniga raadinayo haddana arrintu waaba sii hallowdaba calamadii qabyaaladeedna waa sii bateen ya maalin walbaba dhabaq hor leh ayaa dadka la dhex gelinaya dhallinyarada waktiga laga lumiya ayaa adduunyada iigu daran kuwaasaa calool xumada ugu weyn igu haaya marka asaydii arrinteediina waa taas وصومالي إنه هشيسو صومالي إنه دب سكو صلابته بعد ودي ولينا ما ما يسترنا إن شاء الله وهذا ما يستر مسابين markaas xataa haddaa ka rajo xumaa muu malaynaya inay soo laabanayaan ha to be frank ma u malaynayaan inay soo laabanayaan laakiin inay soo laaban hadday rabaane ummaddaa ilaahay nabadgelye ha heleen oo dhallinyaradu waxbarasho ha heleen oo carruurtu waxbarasho asaasiya ha heleen sida annaga usoo helnay ha فريئة واسكا الدنيا لكن إلهي نحرستي كقوصا منا إن شاء الله تعالى لكن رجدوا ما فينا ما انتظرنا عوضنا النور عوضنا حظنا لو يكون إلى وطني لحدة رجدوا ما فينا قفل بوري ستين وحلية هدي صوماليا وحكاية ترانيو soo xaraasho iska meesha wajiga saari kartid dad badan aan arkay ay ku leeyihiin marka wax iska yimid maaha waa wax la abuuray weeye ilaahayna dadka ma bedela ilaa ay go'aanka isbedelka la yimaadaan mooyaane ilaahay malaa'ik uu soo diray ma ku islaaxaysa meesha kuma soo diray dadkuna ayaga is dhalay hadday madaxdu xun yihiinna shacabkuna waa la mid hadday madaxdu wanaagsan yihiin shacabkuna waa wanaagsan yihiin dadku ayaga is dhalay maxamed gooniyeena waxa lagu tilmaamay dadku ayaga is dhalay ayaga is ah waa miraheeni marka waxaan guranayno nimcada ilaahay markaan ku khilaafno aan ku kufrinay waan miraheeni baan guranayna aamina muuse allaha xafido bbc-daad ka dhegaysateen warkeedii gabar maasha allah heer gaartay ayaad aaminsanaydeen inay ahayd faraxsan laakiin waxbaa jiray gabar walbana marka wejigeeda la arko laga yaaba inay faraxsan tahay labisan tahay laakiin hoos ay ka gubanayso taasay ka turjumaysaa horta taasina ogaataan waaye wax badan baa jira adiga gabadhay dhabka ku haysta keliga kuma ahe dad badan buu soo maray ka baxay saasaan aad uga bixi doontaa insha allahu tacaala taasi waa mid oo dhibka waa laga baxaa qof kastoo aad aragto suuqa ku aragto labisanoo qoslaya ha u malayn inay wax walba juusta u yihiin noloshu waa wax kaamila ma jiraan meel bay ka dhantaalnamaanaysaa ilaa aad ka dhimanaysa horta taas ogow waxbaa is haysta marka allaha kuu barakeeyo noloshaada iyo ubadkaada maasha allah hadday suurtagal meeqa ubada ku jooga maasha allah shan alxamdulilah الحمد لله ما شاء الله أنا مسنا هاي شنطة لا إني هي مانت
ما شاء الله إلهي أكو حفظه أو كو كلا سي دلي الحمد لله ما أنت مركم إسلام هاي واحد بدن مركب قربها جوكتي قربها دحديدا waxaad naawilaysay oo rajaa intaad masleeda maanta waad gaarto waad joogtaa boqolkiiba 90 baa 80 baa ahaatay masleeda هذا كان محايا دينت إسلامك وحين نوشكت الدنيا دي إننا كلنا هاي ميل عن الساحني وحن هجن وحن عن علفك عملت يا عبدنا إلهي باب بحيا كل هذا نقول إن بدأ الساحنا أيو أو كريزي سانك عم بحسنا أيو ميل نبضنا كيانا أن وحن هكتي نضنا عن هستان عورتك الضباشة إساقتي عبدي عندنا إلهي إسي عافمان إلهي إسي وحيك على لسان ملها وجعلان لها إن أنت أصلا ودن كي كهر لكن أنا قمت جعلي هوك أنجرين إلا عبورتا ما مارت قيلا أنا أنجرين إلا قيلي قرباء ساعة قرباء كذا قرباء إلهي يا بدي اللي بانو قحوتي ما أنا نهاي وشقام كو إمادي حتى إلهي بيقول نبتي يعني الحمد مال لله والبنا إلهي وإلهي عرضي سواي مال والبا وإلهي الكي صار لذي سواي صلاة إذا كنت كذا محاولت كان اللي مدها maxay masaajidku aada la imadaho ramadaanka maxay u soomeen la imadaho cidna ima fargeliso marka wax dhibaataa aan ku qaba male wadankii haddaan joogana wadankaygi unbay ahayd wixii ilaahay ii xukmi baan mari lahaa wax badanna wadanka waa joogay qof wadanka xaaladiisu moog ma ihi weliba wadankoo xaalad adag ku jira ayaan ka dhex shaqeeyay marka yes ha alxamdulilah ilaahay waa ii nimceeyey ilaahay إلهي أبو subxaana سلام watacaala waa ii nimceeyey ilaahay baan u baryayaa cid dhibaata ku jirto in dhibaatada ka saaro gudaha iyo dibaddaba آمين آمين بإذن الله آمين آمين من ذا كلا دمر الربينات كفا إدان آمين موسى وحوية أضو وحبرتي ورياء نخترض باحرناشيه إلهنا اللمبرون كويه waxa ugu weyn ee nolosheeda badbaadiyo ku dul wareegaya bilaadanka sababtiisa marka laga tago waa ilaahay oo cararisiyo istiqaaradeeda waa macnaheedu dib hadaad soo martid gabar yahay ma ka dhigna in dadko dhan ku naceen ilaahayna ku nacay dadka qaar ama gabdhaha qaar markay qurbaha qoyska dhibaatadiisa ku soo maraan ama ay mushkilad isla hadlaan depression ku dhaco way waashaan dharkay tuuraan gaar ay guursadaan meelaha Soomaalida ka soo caayaan af xumay ka hadlaan akhlaaq xum maya umalayn mayo wax u dhow inaad martay umalayn mayo wax u dhow inaad martay gabadha waxay martay umalayn mayo haddana waa tana ilaahaydii xarigiisa wali haysata iyadoo xataa ku fikirtay isdisho dhibka haysta dartiis tiina waa ku badbaado waa wax maanta ogaan marka qurba joog ama meel fog joog ama nin ha ku abiyiso ama shaqada lagu abiyiso ama nolosha ku cakirnaato ama caruurta lagu dayaco kama dhigna taas inaad asalkaada inta tuurtid tirahdid aniga waxba laga qorabo waxaan rabaan sheegaya aamina tusaalaha kuugu filaato maskaxdeeda mar way isbadbaadisay iyada badbaadada gacanteeda ku doonatay waafajinta ilaahay kadib marka ku cibra qaado gabar yahay 10 ka qaado xaqaada waxa dhacsan kartaa caafimaadkaada dhacsan kartaa adoo ilaahayga xargiisa ku dhagan ila ilaahay meel looga cararay ma jirtee ba dhacsan kartaa oo xisaabtami kartaa isbadbaadin kartaa nin daciif oo noloshaada baabiinaya aad ka bixi kartaa noloshiisa ubadkaada aad badbaadsan kartaa maskaxdaada iyo mustaqbalkaada aad badbaadsan kartaa mustaqbalka adduunyada waa badbaadsatay marka ka aakhirana waa ku badbaadaya insha Allah taana waa inaad ka faa'iidaan oo ka qaadataan dumaru maqlaysan Soomahan dumaru aad baa mahadsantihiin ma sha Allah kelmadaada ugu dambaysa kelmadeeda ugu dambaysa waxaa waaye gabdho iyo wiilal baan isku si ula hadlayaa kala ma saaraayo xanuunada dhimirka sida kuwa jirka kala waaye waxba kama duwan weli kuwa badan oo jirka ku dhaca ayaga ka sahlan in la daweynta markay imaato in la daweeyo haddaad aragto 2 toddobaad ilaa 4 toddobaad inaad sidaadii hore ahayn in carado inta ka saaran tahay in ilmadu ku soo dhaafayso in wixii hore aad jeclayd aad samayn jirtay aad samaynayn in saaxiibadii aad la sheekaysan jirtay aad ka dhuumanayso in telefoonada aadan qabanaynin in aad murugaysan tahay xitaa adiga oo wax gaar ah ku murugo gelinaya aanay jirin waana isbartaa waa inaa ogaataa xillida marka lagaa qabto lug markaa ku murugacato cidda hoosteed markii nabarkaaga soo baxo
inay la mid tahay dee waa aadaysaa soo maha tanna saasoo kale dardaarankayga labaad waxaa waaye qofba qofkuu ka diin badan yahay oo ilaahay kaga xiran yahay ayaa xanuunadaasi kuu fududaanayaan xanuun keliyana maaha noloshoo dhan kuu fududaanaysa ina maca alcusri yusra haddaad salaada tukato mental illness hataa haddaa qabto waa degaysaa kuul baad noqonaysaa ilaahay tawfiiqda ku waafajinaayo ha ka tegin salaadaada tukan wiilal iyo gabdho qof saaxiiba hadduu jiro inkastoo hadda saaxiib la aaminaa uu yaryahay hal qof oo saaxiiba oo la hadasho ama qoyskaaga ka mid ama walaal ah ama abaayada ama aboowaha ama wadaadka masaajidka qof yeelo yurub haddaa joogto siba UK hadda masaajidyada kulligood waxay qabaan guddiyo lala hadli karo tag masaajidka tag soomaalidu waa ka shakinaya soo maa sirtay kaa bixinayaan soo maa masaajidka xaafadaada tag la hadal guddiga waxaad dhahaysaa confidential qof aa rabaa inaad la hadlo iyadoo aan qofna imaqdinin waa lagu siinaa dhakhtarkaaga ama general practitioner ama GP-ga isagana waa meesha ugu horeysa oo ka bilaabi karta dhakhtarkaaga waa waalanahay aad taqrimatid markaa saana dhahay iyo depression ay ahayd mid ace actitore waxaa leedahay aniga waxaa isku tuhumayaa inaan sida hore ahayn dhakhtarka questionary ku weydiinayaa questionarygaas tiro go-anaa jirto 4 ka mid a haddaad tickles aad siiso oo ay jiraan xaaladda aad ku sugan tahay ay yihiin dhakhtarka diagnosis kugu sameynaa dumarka qarbaha jooga ilmahan haddii ilaahay xukmo in la qaato waa la qaadanaa ogaada laakiin doqonnimo adiga taada ah adoo xanuunsan ha joogin xanuunka intuu kugu cusub yahay ilmo lama qaadanayo dhakhtarka tag ha ku baadho aniga ma hurdo lee dhexaysaa aniga ma faraxsani ilmaha wax ma ka hadlaysno laakiin haddaa isku dheerayso wixii way ku dheeraanayaan boqol allah saas ilmaha looga qaatay kadib markay xanuunka qarsadeen ha dhegaysani buuxa dadka wax magaratada ah ee ku dhahaya caawinaad ha raadsan daawe ha raadsan quraan isu saar adii isku akhri guriga ku sheeg albaqra daaro habeenkii ku seexo dhagaha gasho dadaal ya gurigaa ka ilaali waxyaabaha aan habboonayn xanta macaasida gurigaa guri nadiif ah ka dhig malaa'igta soo gelayso namshuu waa hubaa inaad raysanaysa ya culimmada sheekh badbaadaan kula sii dardaarmaa sheekh badbaado culimmadu aad ha uga hadleen xanuunada dhimirka iyo caafimaadka dhimirka aduu waaba ka hadashaa laakiin kuwa kaleeto oo isku xiran tihiin fadlan u sheeg la wadaag inay ka hadlaan waa muhiim waayo soomaalida culimmada meel muhiima ayay ugu jiraan waa tiir muhiima ayay noo yihiin society-ga iyo bulshada hadday iyaga ka hadlaan oo ay dadkan baraarujiyaan dadkan waa baraarugayaan annaga keliya kuma filin waxa kuu soo haray qofkii caawinaad gaar ah raba fadlan aniga isoo falogale inboxkayga iigu soo dar xalay waxaan ka hadlay workplace mental health amaba goobta shaqada iyo caafimaadkaaga dhimirka xalakii aan ka hadlay waxaan geeyey youtube-kayga aamina sounds aldhaha ama aamina muuse weheliya sida magaceyga tiktok u qoran yahay soo raadsa ka fiirso haddaa caawinaad gaar u baahan tahay isoo xiriir dadka UK jooga UK waxaan ka samaynay organization ka shaqaynaya mental health-ga wuxuu ka shaqaynayaa horumarka bulshada laakiin mental health-ga ayaa asaas u ah wuu cusub yahay aniga gabar kale walaasha hiba aadan la dhahayo dowladda Birmingham ayaa maamulayaalka ah organizationkaas inkastoo soomaalida keliya lagu caawinaynin waddankan soomaalida keliya u deganayn laakiin ogaada idinka number 1 ka tihiin sababta loo furay si aan marka idinkugu sheego ila socda meeshuu degan yahay adreesadiisa sida lagu heli karo sida caawinaad loo weydiisan karo
noloshayda inta ka dhima sida aan soo badbaada maanta u sheegay ani waxaan rabaa inaan laga sika tago organisationka waxay u sameeyey inaan laga sika tago laga sikaasoo ah kan waa non profit waaye non profit that means lacag laguma qaadayo dadka lacag lagama rabo saa laajirkeed please contact us nala soo xiriir abaayadeeda hibaadan khayr allaha siiya ko director ila ah oo ila agaasimeynaysa ciidana basoo dhigi doonaa xiriirkeeda iyo meesha lagala xiriirayo laakiin ogaada aamusnaanta wax ka xun ma laha inta tiktok iyo baaba ka qayli maaha macnaha laakiin waxa waaye wax ay caawinaad raadso hadday noqon lahayd dhakhtar hadday noqon lahayd wadaadka xaafadda hadday noqon lahayd masaajidka xaafadda hadday noqon lahayd ururka bulshada hadda wixii markaas ku caawinayo iyo hadday noqon lahayd qof qaraabadaada ama walaalkaaga ah ama saaxiibkaaga ah oo wax u sheega karta marka aniga intaasaan kula dardaarmayaa tani kulan dambena waa mahadsan tihiin waxaan idiin rajaynayaa maskax iyo jir caafimaad qaba asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله ما شاء الله aad bay umahadsantahay hal qodob bay ka dhawaajisay walaasheen oo ah xanuunka markuu depressionka iyo isla hadalkan kugu cusub yahay iska gaar soomaalida qaar waxay aaminsan yihiin qurbaha jooga haddaa u tagtid kuwan gaalada way ku durayaan carruurta kaa qaadanaya marka isqarso dhibaatadaasa jirta marka ka gaar waa markuu bilow yahay ilaahay jaanis buu ku siiyey maxaad iskaga dayacaysaa gabdho badan baa ilaahay siin oo afrika iyo soomaaliya jooga iska masaakin iska dayacna ilaahay ku siiyey nimcada maka way isgaabinaysaa sababaha bini'aadanka qaadaa ilaahay ku yidhi amarkaygana qaado isku daawey ma u tagtay dhakhtarka saana ay haysa bas ha bilowgo ha waxaa la yidhi soomaalida kuma amaada bidaartu in yar inay kugu gashaa dhibaatadu way kugu bilaabmaysaa ilaahay kugu weynaato meel hadhow wax laga qaban kari waaye hadhow waa buuqay ilmaa laga qaatay waa waalane dharkaa tuure hari hameenna life baad ku jiraysaa alla baayay waa waray baad ku haynaysaa marka uma baana marka tii bini'aadankana kamaada faa'iidaysan oo ku caawin lahayd tii ilaahayna kamaada faa'iidaysan meel cidlaa ka dhacda marka aad baad u mahadsan tahay aamina muuse weheliye sharaf iyo karaamo korkaada ahaato ilaahayna ha ku xafido muraadkaadana allaha ku sahlo intii aad nala joogtay baraka iyo khayr iyo faa'iido badan oo anigu kowka aad dadka faa'iidaystay ayaanu gaarnay aad iyo aad baan kuu salaamayaa waa mahadsantahay sheekh salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله